Somali hanolaato ilaahay Somali hanoleeyo mudan madaxweyne adiga iyo dawladdaada soo dhaweynta adiga iyo shacabka adiga iyo dawladdaada iyo shacabka reer Qardho iyo guud ahaan shacab weynaha Puntland soo dhaweyntooda sharafta badan ee diiran waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay xaqiiqatan waa filaayay maxaa yeelay waxaan ogaa habeenkii doorashada Febraayo 8 saa soo baxdeen oo aan mar labaad idinkaga mahad celinayo aad baad mahadsantihiin idinkoo saakayo dhan taagan ee qorraxdu kulushahay soo dhaweyntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dawlad jecel inaad tihiin dad dawladooda jecel inaad tihiin iyo ka turjumaysaa annagana waxaa nagu ballana inaan jaceylkaas idiin soo gudbinno oo aan dib idinkugu soo celinno oo aan idin adeegno oo aan idin shaqayno hadduu ilaahi yidhaahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiinna sii wadaan oo aad garab istaagtaan dawladdiinna oo aad taageertaan ummaddu markay isku kalsoon tahay yay horumar gaartaa insha allah labada beri aan idinla joogo insha allah waa wada hadli doonnaa si fiican baan idinku warrami doonnaa xaaladda dalku ku jiro idinkuna waa mahadsantihiin sidaas ugu soo baxdeen iyo taageeradiinna maalinta kulul oo qorraxda joogtaan waad mahadsantihiin walaalayaal waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato waxaan idin rajeeyey guul waxaan idin rajeeyey khayr waxaan idin rajeeyey horumar waxaan idin rajeeyey himilo wanaagsan Soomaali ha noolaato mar kale waa mahadsantihiin فرسكان وهدية أدلاد هاي أدوكو كوجو هالكن إن شاء الله بإذن الله الكريم إن أدكو حسوسكوك بولدان بنتلان كارها مقالة فرطوط يقبل كمبري إن شاء الله
aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maatankaaga waxaan leenahay soo dhawow waddankaagii dadkaagii aada madaxweynaha u ahayd oo soomaali oo dhinac daraf ilaa daraf raas kamboni ilaa iyo raas casayr ku taageeray ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba kugu soo dhaweynayna midnimada soomaaliya iyo wadajirkeedu adduunka oo dhan baad arkaysaan yurub oo dhan baad isu tegaysaa cid waliba waad aragtaan soomaaliya wadajirkeedu maslaxadeeda iyo danteeda ku jira waxaan jeclahay insha allahu bismillahi kariim inay noqoto soomaaliya oo qarankeedii iyo jiritaankeedii iyo sharafteedii inay insha allah waxyaalaha muuqda insha allah in la gaaro inagoo nool oo fiyo oo caafimaad qabna inaynu la kulanno sanadkan 2018 wuxuu noo noqon doonaa sanadkii sidii uu boqorku u sheegay dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo ay aasaas u yihiin ama ay hogaaminayaan salaadiinta Soomaaliyeed iyo dhaqankooda ay hogaaminayaan wuxuu kaloo noqon doonaa sanadkan sanad shaqo badan oo horumar leh oo aan ka shaqeyno horumarkaas oo ah inaan jidadkii dhisno burburay 27 sano cid walba oo saaxiibo ah oo caalamkan aan la kaashano idinkuna aad qayb ka qaadataan oo aad bixisaan canshuurihii iyo wixii ku soo aada maxaa yeelay dawlad hadda aragtaan shaqeynaysa oo ummadeedu u adeegaysa shacabkeeda bixiya kharshaadkeeda canshuuraheeda bixiya iyo kalsoonideeda siiya meel walba aan u galno waxaan u diyaarsanahay inaan sanadkan u noqdo sanadkii aan ku dhisi lahayn jidad badan oo hadda naga burbursan